aynu ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in shaqada laga joojin Aamin Ambulance oo gurmadka degdega shacabka ka caawisa. Faisal Hanad ayaa faafahinaya warkan. kadib markii saacadihii la soo dhaafay hadalhayn kala duwan ay ka taagneed amar ka soo baxay booliiska gobolka Banaadir oo lagu sheegay in aanay shaqeyn karin gaadiidka gurmadka degdega ee Aamin Ambulance ayaa mas'uuliyiin kala duwan oo booliiska iyo gobolka Banaadir ka tirsan waxa ay sheegeen in arintaasi waxba aanay ka jirin oo gaadiidka gurmadka ay sidooda ku shaqeynayaan. afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka degdega ee Aamin Ambulance sidooda ay ku shaqeynayaan kaalintii bulshada ee u gargaarista ay ku jireen ay tahay mid loo baahan yahay oo maamulka gobolka Banaadir uu ku garab taagan yahay isaga oo safarta ku fiiqay muhiim inay tahay in laga wada hadlo arrimaha amniga iyo suurtagalnimada goobaha ay wax ka dhacaan amnigooda si loo xaqiijiyo iyadoo aanay meesha ka marneen gargaarka gurmadka degdega ee shacabka loo fidinayo. runtii Aamin Ambulance way shaqeynaysaa maantana ma jirto cid ka joojisay shaqadii oo tiray ma shaqeyn kartaan laakiin waxa jirta sidaan marka horeba aan hadalkayga ku bilaabay in Aamin Ambulance iyo hay'adaha amniga ay isla soo qaadeen sidii loo xoojin lahaa ee wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dhinac runtii wada shaqeyn aad u xoogan ayaana ka dhaxaysa sidii loo maareyn lahaa markay dhibaatooyin dhacaan iyadoo marka hore laga fikirayo sugidda amniga qofka shacabka Soomaaliyeed laamaha amnigana runtii waxa xil ka saar sidii u sugi lahaayeen amniga qofka shacabka haduu ahaan lahaa qof shacab hadii ahaan lahaa kaxeeyihii gaariga ambulance-ka marka ma dhahayo Aamin Ambulance iyo waliba cid walba oo gacan ka geysanaysa laakiin muhiima in marka hore laga wada shaqeeyo dhinaca safety-ga gaadiidka gurmadka degdega ee ambulance ee shacabka loogu gurmado oo aan lahayn wax xuduud ah maadaama qof dhibanayaal ah inta badan ay qaadaan ayaa waxa jirto cabsi la xiriirta dhanka amniga iyo suurtagalnimada in gaadiid noocaas oo kala ah loo adeegsado qaraxyo ka dhaca Muqdisho waana sababta keentay in gaadiidkaasi la sheegay in shaqada laga joojiyay inkastoo mas'uuliyiinta gobolka iyo booliiska gobolka Banaadir intuba ay xaqiijiyeen in shaqada aanan laga joojin oo ay dib u howlgali karaan ama shaqadooda ay sii wadan karaan gaadiidka gurmadka degdega ee Aamin Ambulance. waxaa soo dhamaaday kulan xasaasi ah oo u dhaxeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo inta badan madaxda iyo agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya gaar ahaan kuwada Muqdisho iyo ururada saxaafadda. kulankan oo ahaa mid aad loo soo agaasimay natiijada ka soo baxday ayaa ugu dambeyn waxa la isku afgartay in saxaafadda loo ogolaado kulamada baarlamaanka marka laga reebo kulan su'aalo lagu weydiinayo madaxda amniga oo saxaafaddu aysan ka qayb gali doonin. gudoonka golaha shacabka ee xildhibaanada ayaa isku afgartay in la ilaaliyo abisam socodka baarlamaanka lagana fogaado wax kasta oo qalqal gelin kara kulamada baarlamaanka. waxaana arintan loo soo bandhigay madaxda saxaafadda oo loo sheegay inay ka shaqeeyaan sida gudoonka iyo xildhibaanada ay ku heshiiyeen. kulamada labada maalmood ee socday ee gudoonka iyo xildhibaanada ayaa waxa la isku afgartay dooda ku saabsan arrimaha amniga laga hadlayo maalinta Sabtida soo socota in warbaahintu ay goobjoog ka noqoto waxaana maalintaas kaliya la dhageysan doonaa khudbadaha ama hadallada xildhibaanada iyo waliba fikradaha ay ka qabaan xaaladda amniga dalka oo warbaahintuna ay goobjoog ka noqon doonto. xildhibaanada iyo waliba gudoonka ayaa sidoo kale ku heshiiyay in maalinta xigta ee Axadda ah loo yeeri doono taliyaasha iyo wasiirada si ay uga jawaabaan su'aalaha amniga la xiriira iyadoo aanay warbaahintu goobjoog ka noqon doonin. waxaana u muuqataa in uu fulay qorshihii xukuumadda ay kala heday in kulanka su'aalaha ama jawaabaha ay ka bixinayaan hay'adaha amniga aysan warbaahintu goobjoog ka noqon si aysan isku khilaafin ama hadallo iskhilaafsan hay'adaha amniga halkaa ay ka sheegeen. xildhibaanada ayaa intooda badan ka hor imaaday qorshaha maalmihii ugu dambeeyay la waday oo ahaa in guud ahaan warbaahinta laga mamnuuco kulamada baarlamaanka balse dood dheer kadib oo ay yeeshanayaan xildhibaanada iyo gudoonka waxa lagu heshiiyay in warbaahinta loo ogolaado qayb kamid ah inay tabiyaan kulamada baarlamaanka. xildhibaanada ayaa gudoonka u soo jeediyay intii saxaafadda laga mamnuuci lahaa kulamada baarlamaanka taa bedelkeedna warbaahinta la siiyo wax muujinaya calaamadooda gaararka aqoonsiga ah la siiyo
iyo in ay ilaaliyaan amarada iyo shuruucda golaha shacabka. qodobada suurtagalka ee lagu heshiiyay oo helnay ayaa waxaa kamid ah in wariyaasha imaanaya golaha shacabka ay soo xirtaan jaakado u muuqda in warbaahinta ay ka socdaan calaamadahooda ama loogadooda ay ku buufsan tahay si loo aqoonsado, iyo in saxaafadda ay ilaaliso amarada iyo shuruucda golaha shacabka. 3 iyo in baarlamaanka uu wariyaasha saxaafadda ka socda siiyo kaararka aqoonsiga inta ay ku sugan hoolka baarlamaanka ay tabinayaan shirka baarlamaanka. qodobadan hordhaca ayaa la tilmaamay in hadda madaxda warbaahinta iyo waliba guddoonka golaha shacabka ay ku heshiiyeen sida muuqata maalinta Sabtida ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya halka ay ka jeedi doonaan aragtida ay ka qabaan amni xumada ka jirta caasimada, taasoo loo ogolaaday in warbaahintu ay goobjoog ka noqdaan. laakiin maalinta xigta ee Axadda oo hay'adaha amniga iyo waliba wasiiradaba ay jawaabo ka bixin doonaan su'aalaha, taas oo laga mamnuucay warbaahintu inay goobjoog ka noqdaan. sida ila xogaal ay noo sheegeen dadka falanqeeya arrimahan waxa ay sheegayeen in qorshihii xukuumaddu ay ka lahayd in saxaafaddu dibadda laga saaro su'aalaha amniga la xiriira hadda uu suurtagalay maadaama la doonayo sida xubno badan ay sheegeen in fashil dhanka amniga uu jiro iyo waliba in isbarbaryac ama siyaabo kala duwan u hadlaan hay'adaha amniga dowladda u qaabilsan, taas oo laga hortagayay in warbaahintu wax badan ka ogaato. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo qayb ka ah wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa waxa faahfaahin guud uu ka bixiyay kulan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo kula qaatay magaalada Washington ee dalka Mareykanka gudoomiye ku-xigeenka Bangiga Adduunka. wasiir Beyle ayaa waxa uu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen tallaabooyinkii waaweyn ee dowladda Soomaaliya u qaaday dhanka dib u habeynta hay'adaha dowladda gaar ahaan nidaamka maaliyadda dalka. labada mas'uul ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay ka wada hadleen isla markaana isku soo wada qaadeen dadaalada Soomaaliya ee looga cafinayo deymaha iyo dadaalka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ugu jirto. annaga markaa muhiimadeedu waxay ahayd waxa weeye arrintii deyn cafiska ayaa muhiimadda ugu weyn ahayd. ra'iisul wasaaruhu markaa wuxuu muhiimadda saaray madaxweynaha cusub David Malpass oo aad iyo aad u soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha oo nagu yiri waxa weeyaan dawladdii ugu horeysay shaqadii maanta aan bilaabay uu yiri maanta dawladda ugu horeysay aan damaynana ka waa Soomaaliya buu taas sharaf weyn bay runtii noo ahayd. talabaad waxaan iska wareysanaynay waxa weeye halka ay wax marayaan Soomaalida arrinteeda halka ay marayso, arrintii deyn cafiskii aan ku soo daalay shaqada badan nagaga baxday halka ay marayso ayaan iska wareysanay. taa waxa ka horeysay tu kale oo anaga laftayadu aan la wadnay IMF-ta saduuqa lacagta adduunka aan la wadnay oo shalay daraad baan ku jirnay. waxaasoo dhan wixii ka soo midho baxay baa shirkii iminka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay kulmeen iyadana loogu la fagurayay. maxaa ka soo baxay baa la lahaa, xaggeen ku soconno, xaggeen ka nimid, halkeen taaganahay waa la islahaa. wararku marka halkaas ayay ahaayeen. waxaan u socotaa si fiican bay u socotaa. kulanka magaalada Washington ku dhex maray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka Bangiga Adduunka ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ee dhawaan la magacaabay kaas oo aan weli xilka la wareegin, iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, hanti dhowraha guud ee qaranka iyo waliba mas'uuliyiin kale. waxaana ra'iisul wasaare Khayre la filayaa in saacadaha soo socda sidoo kale oo kulamo kala duwan la qaato madax ka tirsan dalka Mareykanka, isla markaana halkaas sidoo kale uga qayb galo shir looga hadlayo arrimaha deyn cafinta Soomaaliya. wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa ka codsaday midowga boostada adduunka in ay Soomaaliya ka qaadaan xayiraadda saaran sanadaha badan si dalkeena uga faa'iideysto horumarka adduunka uu ka gaaray isgaarsiinta boostada. wasiirka oo ka hadlay shirka guddiga maamulka ee UBU ayaa sheegay in adeegyada boostada ay horumarinayaan dhaqaalaha dal kasta maadaama ay yihiin kaabayaashii adeegyada ganacsiga kala gudbin lahaa, isla markaana lagu abuuri karo shaqooyin badan oo ay dhalinyaradu ka faa'iideysan karaan. wasiirka oo sharaxaya qorshaha ay wasaaraddu u dejiso soo nooleynta boostada ayaa sheegay in howlo badan laga qaban doono dejinta siyaasadihii iyo qorshayaashii lagu hagi lahaa boostada dalka, tababarka iyo dayeenta shaqaalaha boostada,
helitaanka agabkii lagu shaqayn lahaa iyo dib u dhiska xarumihii boostada ee magaalooyinka waaweyn ee dalka. wasiir canshuur ayaa ugu mahad celiyay UBU taageeradii kala duwaneed ee ay siisay Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay, kuwa oo ay ka mid ahayd in ay fududeysay in boostadu ay dalka timaado. inkasta oo ay xayiraada dalkeena ka saaran tahay inaan dalka dibadiisa wax u dirno, waxaan fursadan uga faa'iideysanaynaa inaan u mahad celino Danjire Bishaar Xuseen oo si gaar ah noola duubtay oo la-aantiisna aysan waxyaabo badan noo suurtagelin. wasiirka ayaa ugu dambeyntii ka codsaday dalalka xubnaha ka ah UBU in Soomaaliya laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa boostada dalka oo aas-aas u ah horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga casriga ah. agaasimaha guud ee UBU Danjire Bishaar Xuseen ayaa sheegay in ay sameyn doonto wax kasta oo ay awoodo oo Soomaaliya u fududeyn kara in ay dib ugu soo noqoto inay xubin buuxda ka noqoto, isaga oo xusay inuu soo dhaweynayo tallaabooyinka ay qaaday wasaaradda sanadihii ugu dambeeyay iyo sida ay hoggaanka sare ee wasaaradda uga go-an tahay inay soo nooleeyaan adeegyadii boosto oo casri ah. wasiirka oo safarkiisa ku helinayo wasiir dowlaha wasaaradda Cabdilaahi Bile Nuur ayaa inta ay joogaan dalka Switzerland la kulmi doono dalal kala duwan oo gacan ka geysan kara qorshaha wasaaradda ee arrimaha boostada.